badankeenu waxaan waqti badan ku bixinaa isticmaalka Facebook. Ma xuma taas, laakiin waxaa jiro dhibaatooyin ku hoos jira isticmaalka Facebook. mid ka mid ah aan kuu soo qabtee markii aad waqti badan ku bixiso Facebooka, ogow inay ku hoos jirto cillad ah ama dhibaato ah 24 saac mobilka ama tabletka ama computerka aad ka isticmaalayso Facebooka waxa ka shidan waa iftiinkaas waxaad ku fiirinayso waa indhahaaga. ogowna 24 saac inaad ku fiiriso indhahaaga looma soo saarin iftiin joogto ah. tusaale, haddaad isticmaalayso mobilkaaga Facebook kana isticmaalayso 24 saac ama xilliga rabto haatee, goobta aad ku isticmaalaysana ay tahay goob wada mugdi ah ama goob iftiin ah, iftiinka ka soo baxaya mobilkaas wuxuu sababi karaa ama dhibaato u keenayaa indhahaaga. tusaale, iftiinka mobilka ka soo baxo wuxuu toos u gudbi doonaa indhahaaga isaga oo maraya pupilka, kadibna wuxuu ku sii xigsan doonaa ama uu soo mari doonaa iftiinkaasi corneaha. ugu dambeynna qaybta dambe ee wuxuu tagi doonaa retinaha. hagaag muhiim ma ahan inaan sheego bal isha iyo qaabka iftiinka u qabanayso, laakiin waxaan rabaa inaan videoan kuu sheego farsamo yar oo fudud taas oo kuu sahlayso haddii aad tahay shakhsi 24 saac isticmaalo Facebook, in si fudud Facebookkaaga aad gebi ahaanba uga dhigato mid madow ah. waa Facebook dark mode new feature. waa feature cusub ay shirkadda Facebook soo gurjisay kaas oo kuu sahlaya in gebi ahaanba Facebookkaaga uu wada noqdo mid madow ah, kaas oo awood kuu siinaysa ama kuu suurtagelinaysa iftiinka badan ee ka imaanaya mobilkaaga 99% inuu xadidmo. soo dhawaada saaxiibayaal, hadda waxaan u diyaarsanahay inaan ku tusiyo farsamada. waan filayaa daawashada video inaad ku raaxaysanayso. fadlan si aad u ogaado inaad videoan ka heshay laagare ila daawo farsamada oo aad u fudud. waayahay saaxiibayaal, markaad sidan u dhex mushaaxayso Facebooka, runtii iftiinkiisu waa saa'id. sidaas la mid ah si mobilkaaga iftiinka ka soo baxaya ay indhaha uga difaacdo, waxaan ku tusayaa farsamo yar oo fudud oo kuu sahlaysa inaad iska difaacdo iftiinka tirada badan. si aan kuu tusiyo, markaad Facebookkaaga ku dhex jirto sidana u dhex mushaaxayso, tag 3 dhibcood ee geeska ah, qaybtan hoose u wad. markaad qaybtaas hoose geyso kadib waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay setting privacy. markaad setting privacy ku dhufato sida u jeedidba waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay dark mode, kadibna on taabo. cajiib, mobilkii xitaa iyo background ku xidhan sida ay kaadeen. dib u laabo, dib uga sii laabo. Facebookkayga haddaan soo galo mar kale, sida u jeedid isla markii wuxuu noqday mid balaag ah, ama ka bax ama gal isla meeshii waaya waxa uu noqon doonaa balaag. iftiinka badnaa ee soo baxayay mobilkaaga kana imaanayay mobilkaaga kaas oo sababay in indhahaaga waxyeelo ay ka soo gaarto waa uu ka xadidayaa. isla sida oo kale ayaa lagu xaliyaa haddii aad doonayso in iftiinka badan ee mobilkaaga aad ka xaliso. farsamadana waa isleeyahay wax badan ay ka bedelaysaa waa haddii aad samayso. isku soo wanaagsan saaxiibayaal, waan filaya inaad ka hesheen. ma taqaanaa saaxiib aad iyo aad u isticmaalo Facebooka? halka hoose faalada ugu yar aan kugu daray. ogow hadda waxaan kugu soo gudbiyay si adiga ay uga faa'iidaysato. sidaas la mid ah wali wadaag asxaabtaada adiga oo sharagereynaya calaamadda hoose share taabanaya. waan filayaa in iyagana ka faa'iidaysan doonaan kaagana soo mahad celi doonaan. waad ku mahadsan daawashada videogan. maxaan kaa mudanahay ayaa is leedahay haddii aan videoan kugu soo gudbiyay.